gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen hirshabelle maxamed cabdiwaare madaxweynayaashan ayaa ka soo kici timay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ururada haweenka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho mas-uuliyiintan ayaa markii soo dhoweynta loogu sameeyey gudaha garoonka waxa ay tageen qaybta nasashada v i b da ee gudaha garoonka halkaasoo kulamo isxog waraysi ah ay ku yeesheen madaxda koonfur galbeed hirshabelle iyo galmudug ee maanta soo gaadhay muqdisho ayaa waxa ay ka jawaabayeen fariin ka timid madaxtooyada soomaaliya ee ku aadanayd in ay maanta muqdisho yimaadaan si maalinta biritaha ay kaga qayb galaan kulan loo dhan yahay oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo gobolka banaadir uga furmi doona magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ugu horeyn hadalka qaatay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in caasimadda uu ku soo dhoweeyo madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle maantii oo ah 9 sebtembar waxaa si farxad iyo nasiib wanaag ah soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynayaasha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor maxamed cabdi waare hirshabelle iyo cabdicasiis xasan maxamed koonfur galbeed madaxweynayaashaas oo ka mid ahaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ee heshiiskii samareeb 3 aan isla soo gaarnay markii halkan ay yimaadeen madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo ka maqnaa shirkii samareeb 3 ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in dib laysu arko halkan caasimadda ah madaxweynayaashoo dhan ay isugu yimaadaan iyo madaxweynaha federaalka ah iyo maamulka gobolka banaadir cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha bulshada ay ka qaybgalay soo dhoweynta maanta gudaha garoonka loogu sameeyey u mahad celiyey isagoo sheegay in maamulka gobolka uu kaga mahad celinayo soo dhoweyntan diiran soo dhoweyntii qiimaha badnayd oo nala soo dhoweeyey waan kaga mahad celinaynaa walaal jiro aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan nimaanno magaalo madaxda soomaaliya oo aanna ka qayb galno shirkii dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir ee lagu dhammaystirayey arrimihii doorashooyinka oo muddada soo socday oo ugu dambayntii samareeb 3 go'aanadii lagu soo gaaray sidii loo dhammaystiri lahaa loogana wada mid noqon lahaa arrin heshiis lagu yahay inay uga soo bixi lahayd yaan u nimid madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare oo dhankiisa warbaahinta la hadlay wuxu uu sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka gudaha caasimadda islamarkaana uu kaga qayb galo kulanka loo dhan yahay ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gobolka banaadir ay halkan ku yeelanayaan waxaase uu mahad u soo jeediyey dhammaanba shakhsiyaadkii kala duwanaa ee ka qayb galay soo dhoweynta maanta gudaha garoonka loogu sameeyey run ahaantii annaga waxaan u aragnaa soo dhowayntaasu inay la socoto dalab ah inaan wanaag iyo marxabo iyo kalgacayl maadaamana lagu soo dhoweeyey inaan annaguna wanaag aan ku beddelno aan dhammaystirno heshiiskii qabyada noo ahay wixii haddii rag baa ka maqnaa annagu taladeenni meelaan dhignay rag baa ka maqnaa ayaguna taladooda ku soo biiriyaan soomaali dad badanoo wax ku oolaha joogo magaaladan ayaguna ay waxay ku biiri karaan ku biiriyaan annaga waxaan ku ballan qaadaynaa inaan ka miro dhalinno oo wanaagaasan la nimid wafuudda dowlad goboleedyada hirshabelle koonfur galbeed maanta soo gaadhay caasimadda ayaa ku soo beegmaysa
iyadoo horey gudaha magaalada ay u joogeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland deetana maalinta biritaha ay ka qaybgeli doonaan kulan ay shaacisay madaxtooyada soomaaliya kaasi oo ah mid loo dhan yahay madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka banaadir iyadoo lagu soo qaadi doono kulamadaasi qodobadii ka soo baxay shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed soomane universal t v muqdisho